Buwaanada Hibaaq Maxamed Cabdulaahi ayaa deeqdan oo isugu jirta joodariyaal ay ugu tala gashay inay ku jiiftaan dadka dhimirka leh ee ku xareysan isbitaalka Xabeeb Public Mental Hospital iyo lacago kaasha waxay gaarsiisay dadka halkaas ku jira waxaana sidoo kale sheegtay abwaanadu inay ugu tala gashay deeqdani in ay niyada ku dhistaan dadkan bukaanka ee ku jira isbitaalka dhimirka Xabeeb oo ah ninkaas oo gacanta ku haya dadkan bukaanka ee dhimirka la ayaa uga mahad celiyay abwaanada siday u garab taagan tahay iyo waliba deeqday maanta soo gaarsay isagoo tilmaamay in dad siyaabo kala duwan jir u hayso oo ku xanaanaya halkaas isagoo dalbaday in deeqo kale la soo gaarsiyo وإلهي بهدي هباق مانتا هتاي سوف وقتي حباب public mental hospital وتاريخ دهني قال دعبة بغر من السوق بوكرا وكسي حطونا بوخشوينك معايا لي هباق وحي كولاستاهي أنك مركا ميزاني فنانين الصومال يضم من مركا لسكوترو والله صار الميزان كفت مركا لصارو كلمة كفتك على الصارو لرجعنا وحن قريس الراجع هباق مع عبد الله بن قريس abwaanada ayaa waxay tilmaantay in intii karaankeeda ay waxay awoodo ay keeni doonto isbitaalkani iyadoo ugu baaqday dadka waxaysta inay garab istaagaan dadkan dhibaatadu haysato muddo ah problemo badan baa iska jiray xaalado badan baa iska jiray idinkoo kale jira maxaan ku raadaay haddii ilaahay yiraahdo waxaan insha Allah aan ku dadaali doonaa maalmaha soo socdo inaan maaragtay sida idinkoo kale agoontoo kale maaragtay waayeelada kale inaan maaragtay dadaal badan aan u muujin doono haddii ilaahay yiraahdo maxaan ku raadaay Dr. Xabeeb shaqo culus buu hayaa aan soo koobi karin anin kale waxaan hawshan waa hoos aad iyo aad u culus oo aan ka bixi karin laakiin Dr. Xabeeb aad iyo aad u mahadsan yahay shaqada uu culus u hayo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Hon Cable TV magaalada Muqdisho.